Democratic Republic of Congo waa dal dhaca bartamaha Afrika, si rasmi ahna loogu magacaabo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Dalkan wuxuu leeyahay xeeb dhan 25 mayl oo ah badweynta Atlantiga, laakiin dhulka intiisa kale waa mid xiran. Waa dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, waxaa kaliya ka weyn dalka Algeria. Dalkan caasimadiisu waa Kinshasa, waxayna ku taallaa afka webiga Congo meel u jirta 515 kiiloomitir. Kinshasa waa magaalada ugu weyn bartamaha Afrika, waana xarunta maamulka dhaqaalaha iyo dhaqanka waddankaas. Dalkan badanaa waxaa lagu magacaabaa magaca gaaban ee DR Congo, ama waxaa loo yaqaanaa Congo Kinshasa, si loo kala garto isaga iyo Jamhuuriyadda Congo, oo badanaa loo yaqaano Congo Brazzaville. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxay xornimada ka qaadatay gumeystihii Belgium-ka sanadkii 1960, intii u dhaxaysay 1971 ilaa 1997. Dalka si rasmi ah waxaa loo yaqaanay Jamhuuriyadda Zaire, waxaana uu magacani ku yimid isbeddel uu sameeyay madaxweynihii waqtigaas Jean Mobutu Sese Seko si uu dalka u siiyo magac Afrikaan ah, maadaama magaca Congo uu asal ahaan ka yimid gumeystihii Yurubiyaanka.